إذ والت ويسا ويا حقيقي والت ويسا ويلكي عروتي والت ويسا ميكروفون كحدين ولي غير سو استاذ maanta waxay keenay dhulkeygii dhiiggeygii gacankeygii in la soo niyeysto oo soo niyeysto oo soo niyeysto oo Etoobiyaan hadduu ilaahay raali ka noqdo ilaaha aan garabkeena taagan waana guulaysanaynaa hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan kaloo aan idinkula dardaarmayaa gacmaha inaa isqabsatiin kuwiina gudaha ku jiro gudaha joogo inaad gacmaha isqabsatiin rabbigiina ka cabsatiin oo aad dadaashiin soomaalimada adkaysiin kulligan hal jarsan kaysoo wareersani warleydaa warleydaa abiyo warleydaa ay soo jeedisay afsaan wax ka duwan inaan sheegi doono laakiin mid aan baaq u diraayo dowladda Soomaaliya waan leenahay afsaan dadka Soomaalida ku degan waddankan Holland oo ciidamada u soo shaqayn jiray ciidamada badda veterinariga dadkii asalkooda ahaa ciidamada Soomaaliya oo waddankan Holland degan waxaan idiin abaabuleynaa inaan tigidh idinka bixinno oo Soomaaliya aad ka qayb qaadataan waa dowladda maanta garab istaagtaan ayaan idinku baaqaynaa dad kastoo maanta aqoon u leh oo ciidamada Soomaaliya waddanka ka soo shaqeeyay waxaan leenahay waa inaad ku laabataan waddankiina ayaa maanta idin baahan intaa kadib waxaan rabnaa oo hadal xasuusan mudana waxaan rabnaa insha allahu tacaala dowladda Holland iyo jaaliyadda Soomaaliya waxaan rabnaa inaan marti qaadno xasan sheekh axmed xamse hadduu ilaahay yiraahdo annagoo ku aadinayno sanad guurada صدنات أورك الدنيتان كإحسان صدق السنة إن شاء الله تعالى سنة كام وبشا أغسطس مركز السنة أيضا وحيقتها ورجلين حسوسنا إن معنا تاسي عن أتابنا وحي أو تصدوا إليهم دولة الصومالية حتى الشيخ إياد الزوزاريس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meesha joogo hal qof oo annaga nabiyada intuu noolyahay badda Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed cagta saari maayaan Etoobiyaan Soomaaliya noolaato Soomaaliya noolaato Soomaaliya badda ma karo inta socota hadda meel inoo ka baxaan alla waay ciribtooda insha Allah habaara ka soko xooggeynana waa isku aruuraynaa waana tusaynaa Soomaali looma bilaabo dulmi waxaan ka xumahay maanta iyadoo weliba qabow badan jiro inkastoo roob badan jiro Soomaali inay inta isugu imaan laakiin hadda ma rabo inaan kala xeeyo inaan ma aha waqtigeedii waxaan aad iyo aad u soo dhaweeyayaa dhammaan inta timid ee ka dhabaysay go'aankooda inay tusiyaan inay yihiin dad wadaniyiina waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddiga IFSA waxaan anoo aad u taageerayaa hadallo badan oo runtii ayaamahan kala socday meeriyaha khaasatan hadal aad i soo jiitay waxaa yidhi soola wuxuu yidhi ka soo qaad maanta hadduu cagjar dhihi lahay ee dowladda Soomaaliya ay cagjar dhihi lahaayeen dhulkaagaan kugula heshiino annagoo dhulki leh weliba annagoo Soomaali galbeed leh maanta muxuu qurunka Etoobiyaan sheegi waa naloo yimid madaxtinimadeena yaa la qaatay meesha iyo meel ka daranaan joognaa dadkii annaga laba jeerayna dhaawacay Etoobiyaan iyagoo 1884 adduunka oo u saxiixay dhulka mida Soomaali inay maantana ay adduunkiyo maanta ay soo hadal qaadaan aad wax looga yaqaano waxaan ka yeelaynaa ma aha wax qof Soomaali oo dhiig leh oo yeeli karana ma aha waxaan u sheegaynaa abi iyo dabadhifyadiisa inayna taagnayn Soomaali waqtigii dhulkeeda sheegaysa la hawaysan Soomaaliya noolaato xeeladan ku keenayna aabbiisna kuma keeni jirin awowgiisna kuma keeni jirin 77 meesha nagala celiyay ay adduunka nooga helayaan waa ogyahay taariikhda maanta intii aan kasii fiicannahay mana qaadi karaan waxaan u hambalyahay Awdal State
inay maanta u taagan yihiin dhulkooda inay difaacaan annagana garbahoodana adduunkaanna kala tahay turkiga iyo ardagana waa u mahad celiyeyna waxaan u mahad celiyayaa Egypti masaarid dhammaan inta Soomaali soo garab istaagtay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waan u mahad celiyeynaa waan iska celiyeynaa qof garabkayna maxaa loo jiray sheeg taagan iyo qof tisxin naga qaadi karo ma jiro waxaan ilaahay uga mahad celiyeynaa inaan maanta ilaahay ay furiyin waxaan ilaahay uga mahad celiyeynaa inuu maanta nahaweysa karin abi hadduu isku falaayo dhulkayn aan kayniyaan hadda rabnaa maanta laga bilaabo mid ka ceshaynaba male Soomaali galbeed isku soo soconaya بدل إيد معها بدل إيد معها بدل إيد معها runtii ma soo qorano qoraal u soo diyaarsanay waxaan u mahay laakiin kaliya waxa sheegaya oo nanka rabka inuu ku adkeeyo in aanay macquul ahayn kii awoowayaasheen ay ku soo dagaalameen oo ay diideen oo gumaysi oo dhan ay uga dhaarteen oo u dhinteen intaasoo Soomaaliya waa 77 waa dhowr iyo 60kii waa intii ka sii horeysay ya oo ay jirto taariikh dheer oo inaga dhaxaysa inaga iyo Itoobiya taariikh dheer oo inaga dhaxaysa inaga iyo gumaysigaas Itoobiya waxaan oran karaa deegaanka hadda aan ka hadlayno waxa weeye deegaan taariikh dheer waxaan u malaynayaa inuu hay halkan wax badan ka sheegay dadii ugu horreeyay wax badan ka sheegay waxaan ka hadlaynaa wasiila waxaan ka hadlaynaa waa dhulkii taariikhda islaamka ay ka soo gashay dhulkeena waa dhul taariikhi ah dhulkii waa la dayacay baan oran karaa maanta seelca ma ahaateen tu burbursan oo lagu wareegtamo oo ay dad kale sheegtaan oo dad kale ay maanta hindishoodaan leeyahay dayaca ka muuqda ayaa keenay oo soo handiso oo shaqaale dayacadooda adag waxaa ku yaala oo adduunka dhan lagu yaqaan laba masaajid taariikhda lagu hayo islaamka ayaa ku yaala oo dayaco weli oo laba derbi ka taagan yihiin waa isla oo ay ka dhigeen taariikhda oo ummadda islaamka ay soo booqato oo tuuristiya ama diinta islaamka lagu barto umaynaan waayin maanta 100 kun ku bixino ina 200 ku bixino in daraasad laga bixiyo in taariikh lagu qaato midna bayn u waayin waa sanasiib darro dhacday taasise waxay loo cadaynaysaa inay maanta muslimiinta iyo qulubtii dadka islaamka iyo qulubtii Soomaaliyeedba ay soo jiidatay arrintan maanta dhacday arrintani waa arrin midnimo leh waa arrin maanta Soomaali isku soo dhaweysay waa arrin maanta Soomaali qalbigooda isku furtay waxaan rajaynayaa in laga midho dhaliyo insha Allah ta'ala ciidayno Soomaali hadii waxa loo bilaabo ama hadii Soomaali soo wararto weligeed ba kulay guulaysan maanta rabbi ma dhici doonto inuu baa ku soo marwalba waxaan rajaynayaa inaad ku rajoway inay loo aragno maanta oo taariikhdu dib u soo noqoto Soomaaliya dib u midowday Soomaaliya maanta awoodeedii soo noqotay إن شاء الله تعالى وحرتيني والآن معناه تويه سومالي هو يقول بوليسيتو كان يقول بوليسيتو أنا سوق في هذا كذا أنت وقعت على هاي أيام أنت سوق تشيسنا إن قلوب تلا مش كسر تيدنا إن القطة قال الله هو إن راهنا كذا ميباها ممكن ميباها عدنا لجدي يبايا وحلا سومالي هم يدور سومالنا ليش يا أبي أحمد؟ ninkii Soomaaliyeedka ee la heshiiyay Abiy Ahmed ninkaas muu doonayn Soomaaliya waxa qurax muu yeelay wuxuu doonay raa'id inuu kala baadiyo nacayb oo qabo marka nimanka siyaasiyiinta isku sheegay awda waan anigu la hadlayaa aad u la hadlayaa inayna rumaysan digicad ka jooga Hargeysa ee weligiina aan celin ana waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo siyaasad weyn ciyaaray ilaahayna ku garab galo أنا وحرج بيني أنا أقول ليس دولنا ولي وحب ما يسمين يتبوا وحب ما يسمين لكن لا يما إن سمين نقطة إن شاء الله إله من قبل وبإذن الله كريم وإن شاء الله. تعرفون النجلي بركة ولا في كويس جينا تنتي بكوين لو تنتي بكوين إتيتو إمنا إتيتو الله إمنا إتيتابتو إمنا ولا يبغى لها أمريكي جريو 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 جريو
soomaaliya guulayska dadnimada leh ee ay wada soomaalinimadu mar haddaan iskugu nimidnay waa ilaahay mahadii wuxuuna waxa weeyaan in hadal badan iyo uma baahna laakiin in shucuurta la muujiyo oo shucuurtaada aad muujiso uunbaa muhiima waxa weeyaan waad og tihiin waxaan maanta iskugu nimidnay waxa weeyaan waa baddeenna iyo damaca Itoobiya waxa weeyaan damaca Itoobiya orda damac maanta yimiday maaha 900 oo sannadood ka hor buu yimiday wax badanna waa la isku dayay meesha targetkana waa taqaaniinoo waa magaalada Saylacna la idinka warrami maayo taariikhdeeda wax badan baad haysaan adduunkuna wuu hayaa meeshaasi waa meesha taariikhda ku suntan islaamka geeska Afrika markii laga galay waa meesha kaliya uu ku yaala masaajidka qiblatayka la yiraahdo masaajidka qiblatay la yiraahdo taariikhdiisu dawaad garanaysaan adduunyada laba qiblatay baa jira ka Soomaalida Saylac ku yaala iyo Madiina ku yaala marka halkaas ay ka soo farcantay ilaa iyo waqtiga waxa isaayay geeska Afrika kaniisada iyo masaajidka marka sidaa darteed meeshan hawl weyn baa ka socota oo maaha bad kaliya ee waxa la doonayaa in taariikhdeeda magaalada faca weyn ee qarniyada jirtay ee maanta aan ku faani lahayn magaaladu waa magaalo aad taqaanaan oo adduunyada caanka ah waxa 9 jasiiradood baa agtooda yaa ku naman oo agtooda ta ugu weyn waxa la yidhaha Saacadiin ta ku xigta waxa la yidhaha maxay ahayd saasay iskugu taxan yihiin marka taariikhda intaa leeg baa la doonayaa in la duursiiyo oo Itoobiya qaadato marka inaguna inaynaan ka yeelin baan doonaynaa kana yeeli mayno damacana waxa galiyay dad inaga mida Itoobiya weligeed meesha jaar baan ahayn maanta may soo degin laakiin markaad adigu wixii doonayso dee dadkuna way kugu dhiiranayaan Itoobiya 2 jeer bay hal mar bay soo gashay Soomaaliya way caasimadda Soomaaliya soo gashay maalinta nin baa hadlay oo Allah u naxariistay Umar Cismaan Raabi la yiraahdo ka soo jeeda dalka Djibouti uu dhintay maalinta hadal buu reebay waxa la weydiiyay Itoobiya Soomaaliya caasimaddu way soo gashay maxaa la yeelayaa ma oran hala booroti iyo hala baabi'iyo waa la baabi'in ma oran wuxuu hadal qiimale wuxuu yiri caasimada adduunyada caasimadooda waa la galay Paris baa la galay oo maxay Athens baa la galay oo Istanbul baa la galay galishtu waxba maaha laakiin waxa hadda la soo diray see looga saaraya way dhacday waa laga saaray maantana ilaahay kama yeelay hadday timaado sidaa uma laga saaraya horta taa ku bishaaraysa Itoobiya inshallah hadday timaado ilaahay kama yeelay laakiin waan ka saarayna marka sidaa ogaada inaguna halkaa taariikhda kaga jiriyo islaamnimadeena iyo waa la yaqaanaa laakiin maanta waxaan u baahanahay midnimo maanta kalaadaadkanaanteenna iyo sidaan nahay iyo dowlad goboleedyada iyo qaabka aan u naalo baana inoogu soo hurtay midda kalena waxay tahay magaaladaasi magaalo cajiib ay ahayd waa la dayacay waxaan u malaynayaa marka Saylac la hadashay oo tidhi ha laysoo gaaro maadaama ay sidaa u dhacday oo gaaliga islaamka maanta ay mashhuur noqotay inay la gaadhayo oo sideedu ku soo noqonaysa baan biidnillah ilaahay ka rajaynayaa intaasaan kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi waad mahadsan tahay heybe Itoobiya aysan ku dhici karin inay dhulkeenna hawaysato annagu waxaan leenahay qaadashaha joogteen sidee ku dhacsan inay hawaysato waxaan la soconaa Itoobiya damaceedu inuu yahay dowladdii Soomaaliya maadaama ay saartay waddadii ay kula soo laabanaysay haykalkii dowladnimada iyo meeqaamkii ay dunida ku lahayd in Itoobiya ay doonayso in daqiiqadaha ugu dambeeya ay ka faa'iidaysato laakiin Abiy Axmed waxaan leenahay Soomaaliya way soo jeedaa waxayna diyaar u tahay inay ku heli dhulkeeda dowladda Soomaaliya iyo madaxdeeda waxaan leenahay garabkiina ayaan nahay وأنا لا أحسن هاي بدالة المدحوينها يكون الدفاع جناها المصالح الضلكة فسوق عن المدحوينها يمدحنا إعلامات دولة صوماليا لنا هاي ومضوا إنت أسئين قبل هاي كسويسا تعريفنا وكوميسا ونجمنا ويسا وحال من تنفر لها إلى الضلكة عدالة كما مثال صوماليا عدالة أيام دارة
walaalayaal ugu dambayntii waxaan ogeysiinaynaa caalamka khaasatan dowladda Netherland midowga Yurub qaramada midoobay iyo dhammaan beesha caalamka haddii aan nahay bulshada asalkoodu Soomaaliga yahay ee ku dhaqan dalkan inaan ka soo horjeedno oo diidanahay damaca Itoobiya ay ku doonayso inay badeena ku xaleelaysato midnimo wadajir iyo guul baan idinka rajaynayaa